mid ka mid ah ciidamada militariga ee gobolka Awdal ayaa rasaas ku furay saaka taliyihii ciidamada aaga galbeed gaashaanle sare Xasan Aqli iyo Xidigle Faarax Caraale Waabari isla markiiba waxa halkaas ku naf waayay Xidigle Faarax Caraale Waabari halka uu dhaawac culus ka soo gaadhay taliyihii aaga galbeed gaashaanle sare Xasan Aqli iyadoo isla waqtigiiba loola cararay isbitaal ku yaala duleedka magaalada Boorama oo lagu magacaabo Al Hayat Hospital allaha u naxariistay isaguna waxa halkaas laga qaaday Xidigle Faarax Caraale Waabari ciidamada booliiska gobolka Awdal ku guuleysteen inay xabsiga dhigaan dambiilihii falkaas geystay kana tirsanaa ciidanka militariga ee gobolka waxa iyagu hadaba warbaahinta si wada jir ah ula hadlay rasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramax iyo maayarka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane tacsina u diray Xidigle Faarax Caraale Waabari iyo dhaawac halista oo geystay sarkaal ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi waxa dhaawac halis ku yaala oo isbitaalka u joognaa taliyihii aaga galbeedka gaashaanle sare Xasan Aqli oo dhaawaca iyo marxuumka kale Xidigle Faarax Caraale Waabari oo ku geeriyooday gacantaa ka timi gacanku dhiiglaha isaguna ciidanka qaranka ka tirsanaa gacantana waa lagu hayaa naf lama qaban karo laakiin intii taalkeena waan dadaalaynaa wixii suurtagalaba inaan qabanno haddii ilaahay ka dhigo waa dariiq ilaahay sidee loo wadamada qadarkii rabbi baa dhacay aad baanan uga xunnahay dhibtaasi waan ka taxsiideynaa ciidanka qaranka iyo qaranka Somaliland iyo eheladii oo ka baxay marxuumka dhintay waana dib ka dhex dhacday marka ciidanka dhexdiisa qadarka kubeen ku dhacday wax dhiba meesha ka jirta dadka taabiciyay jirto aad baan uga xunnahay waa taliyihii afaraad ee askartii uu maamulayay muddo 2 sano gudahood ay dil ugu geystaan guud ahaan Somaliland oo jaamacadda Somaliland Space Channel Boorama.